halkaa waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Salaan kadib waxaan rabnaa in maamulka garoonka Muqdisho uu u sheego lana wadaago shacabka Soomaaliyeed warbixin ku saabsan isbedelada ku yimid garoonka. Sanadkii la soo dhaafay garoonka waxaa ku yimid isbedelo muhiim ah oo uu kula jaan qaadayo airportada dhigiisa ah ee casriga ah. waxa laga bedelay wadada runwayga ah ama dhambada ay ku cararaan diyaaraduhu markay duulayaan. runwayga waa la casriyeeyay, waa la qurxiyay, waana la diyaariyay. waxaana loo diyaariyay in uu shaqayn karo hadda 24 hours habeen iyo maalinba. sidoo kale waxa laga bedelay oo la casriyeeyay wadada muhiimka ah ee airportka laga soo galo oo dhanka Jazeera, taasoo ayadana loo diyaariyay hab ama qaab loo isticmaali karo 24 hours oo lagu xiray ayadana layrar loona diyaariyay qaab mar kasta loo isticmaali karo garoonka loo soo gali karo. sidoo kale waxaad la socotaan caqabadaha ugu waaweyn oo garoonka haystay inay ka mid ahayd wadada dhex marta garoonka oo Xalane road la yiraahdo, wadada Xalane oo Xalane iyo garoonka isku xirta, in ay ahayd wado ay isugu yimaadaan dhammaan gawaarida gudaha Xalane ku jirta, kuwa ka imaanaya banaanka Xalane, kuwa airportka ka soo baxaya. halkaas oo caqabad weyn ay ka haysatay shacabka Soomaaliyeed marka ay safrayaan, sababi jirtayna in ay in badan oo kamid safarka inta ay wadada ku dhex jiraan ay sababto inay ay ka dib dhacaan duulimaadyoodii diyaaraduhuna ay ka tagaan. si arrinta loo xaliyo dawladdu waxay gashay dadaalkaas oo waxa weeyaan lagu dhisayay baarkinkaas oo qaadi kara gawaari badan, gawaaridan lagu xareyn karo, isla markaasna u fududeynaya shacabku inay wadadii ay u marayeen garoonku ay noqoto mid u fudud una sahlaysa inay si fudud ay garoonku soo gaaraan. waa ogeydeen shacabku inta badan waxay oran jireen marka ay garoonka inta la soo galaan gawaarida celiye la yiraahdo, doodu inta badan taagan waxay ahayd gaarigeyga xageen geeya, taasoo sababi jirtay in gawaarida lagu baakibo wadada dhinacyadeeda, wadaduna ay celiir noqon jirtay, yaraana jirtay, halkaasna ay ka dhalan karto khatar badan oo amni iyo mid badqab labadaba. oo haddii waxa weeyaan garoonka uu ka dhaco waxa weeyaan xaalado degdeg ah ama dab u yimaado ay adag tahay in marar qaybtood in halkaas la isticmaalo. si taas looga gudbo waxaa dawladdu ay diyaarisay juhdina ku bixisay in la dhiso baarkin casri ah kaasoo qaadi kara in ka badan 500 oo gaari, dadkuna ay kulli waxa weeyaan u furan yihiin u leeyihiin inay isticmaalaan. baarkinkaasi waa noo furmay, waa noo diyaar. waxa uu noo furmay 19 bishan October ayuu furmay. cid kastana waxaan ka codsanaynaa in ay baarkinkaas isticmaasho. maamulka garoonka iyo wasaaradda gaadiidku waxay amar ku bixisay in dhammaan gawaarida, dhammaan dadka ha ahaadaan ganacsato, ha ahaadaan shaqaale dawladeed ama saraakiil dawladeed, ha ahaadaan shaqaale u shaqeeya hay'adaha caalamiga ah, iyo cid kasta oo dan ka soo yeelata garoonka oo gaari wadata, waxaa la marsiinayaa procedureka amni ee garoonka. procedureka amni ee garoonka markii la marsiiyana waxaa loo diyaariyay baarkin ay gawaaridooda dhigan karaan. waxaan ka codsanaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, ganacsatada, khaasatan shaqaalaha u shaqeeya dawladda, waxaan ka codsanaynaa in awaamirta ka soo baxday wasaaradda iyo hagaajinta la hagaajinayo garoonka ay nagala shaqeynayaan, una hoggaansamaan awaamirta iyo jihaynta hay'adaha amniga ay ku jihaynayaan gawaarida baarkinka. waa mahadsan.